kubadda cagta ayaa noqotay lacag email ee bilyaneero ku noqdaan ciyaaryahanada kubadda cagta waxaana jira ciyaaryahano ka tagay inay iibsadaan gawaarida ugu qaalisan qaarkood waxay haystaan diyaaradaha ugu qaalisan dunida ee qaaska ah ee loo yaqaan private jetka Lionel Messi, Ronaldo, Neymar, Gareth Bale, Paul Pogba iyo Kaka ayaa kamid ah ciyaartooyda haysta diyaaradaha ugu qaalisan ee adduunka kuwa oo ah kuwa iyaga u gooni ah haddaba waxaan idin soo gudbanaynaa tobanleyda ciyaartooyda haysta diyaaradaha ugu qaalisan ee dunida diyaaradaha qaaska ah ee safarada loogu talagalay iyo kuwa raaxada Muqdisho Cable Sports waxay idin soo gudbinaysaa ciyaartooyda haysta diyaaradaha ugu qaalisan ee dunida ee qaaska u ah iyaga Zlatan, Neymar, David Beckham ayaana liiska ku soo baxay kaalinta tobanaad waxaa ku jira ciyaaryahanka lagu magacaabo Ronaldinho ayaa waxa uu haystaa diyaaradda magaceeda lagu magacaabo Embraer Phenom 100 inkasta oo ciyaaraha uu ka fadhiisay ciyaaryahankan waxa uu haystaa lacag fara badan kadib markii inta badan uu masulfay wuxuu dib u shaqeysay lacag fara badan isagoo dawladda Brazil ay fasaxday lacag ugu jiray akoonnadiisa inkastoo mar loo xiray inuu baasabeer been abuura ugu safreeyay dalka Paraguay haddana ciyaaryahankii hore ee kooxda Barcelona wuxuu leeyahay diyaarad isaga u qaasa diyaaradan ayaa waxay ku safri kartaa 466 mayl saacadiiba waana diyaarad qaasa oo waliba gaaban lacagta ay ku fadhiso ayaa lagu qiimeeyay 2.6 milyan oo lacagta yuurooga ah kaalinta sagaalaad waxaa ku jira ciyaaryahanka reer Brazil ee Kaka diyaaradda Kaka ayaa lagu magacaaba Kasana Keteshan CG3 Plus waan garanaynaa xidiga caalamiga ee wadanka Brazil inay dad badan ay jecel yihiin waayihiisa ciyaareed ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan wuxuu degan yahay guri weyn oo magaalada Madrid sidoo kale guri kale wuxuu ku leeyahay magaalada Milano diyaaradda uu haysto ciyaaryahankan caalamiga ee wadanka Brazil ayaa waxay tahay mid basanjara sidoo kale waxay qaadi kartaa mararka qaarkood cargo hadii loo baahdo 478 mayl ayana saacadii ee ku safri kartaa waxay leedahay motor 2400 sidoo kalena waa mid suuq marka la dhigaa lacagteeda la heli karo waa diyaaradihii ugu dambeeyay ee dunida system ahaan waa mid leh qol badbaado hadii ay wax dhacaan lacagta diyaaradda Kaka waxa lagu qiimeeyay 5.7 milyan oo euro kaalinta sideedaad waxa ku jira xidiga Real Madrid ee Gareth Bale diyaaradiisa waxa la yiraahdaa Casino Keteshan XL Plus markaad u ciyaarayso Real Madrid waa qasab inaad ka takoornaato ciyaartooyda kale ee kubadda cagta ciyaaryahanka reer Wales ayaa ka soo tagay kooxda Tottenham oo qaab amaha ugu ciyaarayay waxaana ku soo safray diyaaradda 2100 motorkeeda uu yahay taa oo safri karta 507 mayl saacadiiba Gareth Bale ayaa Real Madrid xilliga uu baxayo iyo xilliga uu ku soo laabanayo xilliga dalxiiskiisa iyo fasaxaba wuxuu ku safraa diyaaradan qiimaheeda lagu qiyaasay 8.6 milyan oo euro kaalinta toddobaad waxa ku jira ciyaaryahan Neymar diyaaradiisa waxa lagu magacaabaa Embraer Legacy 450 ciyaaryahanka ugu qaalisan ee dunida kubadda cagta waa qasab inuu haysto wuxuuna leeyahay diyaaradda helicopter lacag fara badan ayay ugu fadhiisaa ciyaaryahankan waa da'yar aan da'da 30 gaarin waxay diyaaradda u safri kartaa meel walba oo dunida ah 531 mayl ayana saacadii ee ku safri kartaa motor cabirkiisu uu yahay 2900 ay leedahay diyaaradan khaaska ah waa mid raaxo waxayna gudaheeda ay leedahay wax walba oo loogu talagalay qasri lacagteeda waxa lagu qiyaasay 10.8 milyan kaalinta lixaad waxa ku jira Wayne Rooney diyaaradiisa waxa la yiraahdaa Dassault Falcon 900 LX Geneva ayaa lagu sameeyay Wayne ayaa waxa uu yahay ciyaartoy kamid ah ciyaartooyda ugu fiicnaa ee kubadda cagta wuxuu leeyahay guriyo waaweyn 660 feet weeye 24 feet ayna marar qaarkood ee dhanka cabirka uu yahay 4750 ayaa lagu qiyaasay heerka mishiinka ee diyaaradan qiimaheeda waxa lagu qiyaasay 14 milyan oo euro kaalinta shanaad waxa ku jira Paul Pogba xidiga kooxda Manchester diyaaradiisa waxa lagu magacaabaa Golfstream G280 xidiga reer France ee superstarka ee qoobka ciyaarka ku wanaagsan diyaaradan meel walba oo uu qaataa wuuna ku safraa marka aanu ku jirin safarka kooxeed iyo midka xulkaba wuxuu u doortay waxay tahay xawaaraha iyo quruxda ay leedahay diyaaradan 559 mayl ayna saacadii ee ku safri kartaa iyadoo motorkeeda lagu qiyaasay 3600
Pogba ayaa sidoo kale diyaaradan wuxuu ugu qayb galay shirar fara badan oo qaas ah, xaflado iyo casuumaad gooni ah oo ay u fidiyeen hay'adaha kubadda cagta. diyaaradan ayaa qiimaheeda wuxuu yahay 18 milyan. kaalinta afraad waxaa ku jira David Beckham diyaaradiisa waxaa lagu magacaabaa Bombardier Challenger 350. waan garanaynaa David Beckham waa ciyaaryahanka haysta kubadda cagta qaybta faashiyonka. diyaaradan 350 waxay tahay diyaarad gudaheeda jiif ay leedahay, sidoo kale waxay leedahay wax walba adeega. sidoo kale 1 milyan oo dheeraada ayaa gasha oo ah qarashaadka dheeriga ah ee lagu talagalay inay ku baxdo. Victoria Beckham oo ah xaaskiisa ayna inta badan ay ku wada safraan. Beckham diyaaradan motorkeeda waxaa lagu qiyaasay 3228 mayl ayna saacadii ay ku safri kartaa. 19 milyan ayana lacagteeda lagu qiimeeyay. kaanadii saddexaad waxaa ku jira Zlatan Ibrahimovic. diyaaradda Zlatan ayaa lagu magacaabaa Casina Citation Longitude. waa diyaarad cusub oo nuuceedu farsamadeedu ay tahay 2016 inkastoo 2017 oo si rasmi ah u gatay 65 feet ayna cirka ay gali kartaa. waana diyaarad xajmigeedu uu aad u weyn yahay 448 meel ayna saacadii ay ku safri kartaa. Zlatan xidiga AC Milan ayaa diyaaradan waxa uu qaadi karaa 12 qof. jiif cunto xafiisyo ayna leedahay. 3500 ayaa lagu qiyaasay motorkeeda. 21 milyan ayaana lagu qiimeeyay lacagta diyaaradan. kaalinta labaad waxaa ku jira Lionel Messi. diyaaradda Lionel ayaa lagu magacaabaa Imperial Legacy 650. ciyaaryahanka ugu fiicnaa ee dunida kubadda cagta ee taariikhda. waa qalad inuusan haysan diyaarad, waana ciyaaryahanka labaad ee diyaaradda ugu qaalisan haysta dunida. waa uu jecel yahay raaxada, wuxuu leeyahay guri weyn magaalada Barcelona. diyaaradiisa Empire Legacy 650 ayaa waxay tahay mid ka mid ah diyaaradihii ugu dambeeyay ee dunida laga farsameeyo. Legacy 600 ayaa waxay tahay diyaaradda 3900 motorkeeda lagu qiyaasay 1134 kilogram ayaana lagu qiimeeyay 528 mayl ayna saacadii ay ku safri kartaa. 14 qof ayaana lagu talagalay. diyaaradan ayaa wuxuu adeegsan karaa 10 sanadood ee soo socota. lacagteeda waxaa lagu qiyaasay 25 milyan oo euro. kaalinta koowaad waxaa ku jira xidiga ku caanbaxay kubadda cagta faashiyonka dharka qaaliga ee Cristiano Ronaldo. Gulfstream G650 ayaana diyaaradiisa lagu magacaabaa. haddii uu haysto gawaarida ugu qaalisan markana wuxuu kaalinta koowaad kaga jira ciyaartooyga haysta diyaaradda ugu qaalisan ee dunida. Ronaldo wuxuu u labistaa uuna u nool yahay sida boqorka oo kale. wuxuu ka safraa diyaarada qaasa oo isaga kala goosho jasiirada qaas oo isaga uu leeyahay. xidiga Juventus diyaaradiisa G650 ayaa waxay tahay diyaarad qaata 18 qofood 610 mayl ayna saacadii ay ku safri kartaa. motorkeeda waxaa lagu qiyaasay 7000 cabirkeeda. 2950 injinkeeda waana laba motorey. 28 milyan ayaana lagu qiyaasay diyaaradda uu haysto Cristiano Ronaldo.